الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومال أحد بشا مينا أيتي لواتني أفر لوذا كوني لواتنك وحن شعلها أما أن شعلها يستي إن عن عدا يوم مسائل الدورة إلى 8 مسألة oo ka dhalatay ciidii la kala ciiday sanadkan 2020 ama dhanka hijriga 1441 sayishaas oo runtii su'aalahooda soo noqnoqdeen dadka qaarkoodna siyaabo kala gedisan ay uga hadleen ama siyaabo kala gedisan ay u fahmeen inaan cadeeyo ayaan ugu talagalay. طبعا مسايشني سنة كان كلية ما هي مرة والبيصان نقدان هرينا وأودعان تفاصيل السيادة إن كبد حنهم ففاهنا وقت درب أوباهن لكن سكوا ما بنشعل إن شاء الله تعالى إن نواه الله مركه هراء أنت ننقلين كهر دعها وحنده لها مسايشة دين تكوسابسن شرعي كوسابسن waxaa laga maarmaan ah ruuxa ka hadlayay in uu sharciyeeyo oo saleeyo oo taasiiliyo oo uu u celiyo ama nusuustii ku soo aroortay haday quraan tahay haday sunno tahay u celiyo kutubtii fiqhiga iyo culimadii fiqhiga iyo culimadii sunnadu say uga hadleen qaabkaasa masaa'isha diinta loo waajahaa noocay dooni ha noqdeen. dadku marka waa laba dadna waa dad caam ah oo muslimiin ah oo masaa'ishan aan baari karin oo ka sal gaari karin. dadna waa dad culimo ah oo wax baari kara ogaan kara masaa'isha aqoonteedii meeshay ku taalo ka sal gaari kara. ninka dambe oo ka sal gaari kara waxaa laga maarmaanaa inuu masaa'isha baaro oo raadiyo oo maxaa ku soo arooray culimadu say uga hadleen maxay ku kala aragti badan yihiin maxay isku waafaqsan yihiin bacda baxthi iyo baarid kadib wixii u soo baxay inuu ka diin dhigto dadkana u sheego. dadka kale ee caamada ah ee masaa'isha aan ayagu baari karin oo awoodeeda lahayn ayaga waxaa laga maarmaanaa masaa'isha diinta guud ahaanba in ay weydiiyaan cidda ay aqoontiisa iyo alla ka cabsigiisa ku kalsoon yihiin oo ahlu dhikri iyagu marka ay u arkaan fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun kadibna wixii uu u sheego inay ka diin dhigtaan. inma shifaa'ul ayyi su'aal midu nabiga sallallahu alayhi wasallam ruuxa aan wax garanaynin daawadiisu waa su'aasha kadibna wixii loo jawaabay inuu qaato maadaama isagu uusan mas'alada ka sal gaari kareenin. taa waa mid waxa khalad ah dad aan gaarsiisnayn inay mas'alada saleeyaan inay sidii culimo oo kale mas'alada uga hadlaan oo ay booskii dadka ahlul cilmiga oo kale intay fadhiistaan fataawi khaldan inay ummadda siiyaan waa qalad. sidaas daradeed intaas horta hordhac baan u leeyahay. inta kadib masaa'isha aan doonayna cadeeyo waxa weeye san horeba u sheegay masaa'il ka dhashay ciidan la kala ciiday muslimiintu ay kala ciideen horeen waa kala ciidi jireen oo taariikh ahaan way soo jirtay. masalada hore in doonay inaan cadeeyo marka waxa weeye bisha dhalashadeeda ama tan ramadaanka ha noqoto ama tashawaal ha noqoto ama midda xajka ee dilxijja ha noqoto bisha dhalashadeedu maxaa lagu sugaa shariicada marka la yiraahdo iyo diinteena jawaabteedu waxa weeye saddex mid ka mid ah ayay ku sugnaataa. masaladana waa mas'ala caan oo la yaqaan way ta koobaad ay bisha ku sugnaato waxa weeye ama dariiqa koobaad ee bisha lagu sugo waa in si toos ah ruuxu u arko isagu suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati nabiga sallallahu alayhi wasallam aragtida bisha ku sooma aragtideedana ku afura. taasi waa dariiq adiga arkay xataa kaliya hadaad aragto ood hubsato inaad ku soonto way
dariiqa labaad bishii maalinkii la filayay galabtii la filayay waa la arki waayay 30 bari baa la dhamaystirayaa 30kii bari markii la dhamaystirana waa la afurayaa waa la ciidayaa hadday shawaal tahayna oo soon soo galayana waa la soomayaa iyadana xadiista nabiga ku cadahay sallallahu alayhi wasallam oo rasuulku wuxuu yiri bishii hadday idinka qarsoontood arki weydaan tirada 30 dhamaystira markaa haddii 30 la dhamaystiro ama bishii hal la arko ama yaan la arkin waa la afuri hadday bisha dhamaanaysa ay tahay shacbaanna waa la soomi bisha dhamaanaysa hadday soon tahayna waa la afuri maadaama 30 bari muxuu ahay bishii la xisaabiyay taana waa dariiqa labaad oo xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam baa ku cad waana mas'ale la isla ogoliyay inta badan culimada dariiqa saddexaad oo ay ku sugnaato waxa weeye inay dad arkay soo sheegaan dadka arkay baa laba mid ah marka dad fara badan oo meelo kala duwan jooga oo aan is arkin oo aan heshiin karin oo wax isku waafaqi karin oo meelo kala fog kala duwan jooga inay soo sheegaan tiradooduna badan tahay midda waxa la yiraahdaa waa tawaatur baa istifaada la yiraahdaa macnaheeduna waxa weeyaan waa yaqiin mar haday dadku aad u bataan meelo kala gedisanna ay ka soo sheegaan waa xaqiiqo yaqiin ah oo aan shaki gali karin isla taa waxa ku jira qodob kale isagana dadka arkay ma badna laakiin bishii ramadaan inay dhamaatay baa waxa sheegay laba ruux oo muslimiin oo caadiliin ah ayadana jamaahiir ahli cilmi siday qabaan laba ruux oo muslimiin ah oo lagu kalsoon yahay hadday sheegaan bishii shawaal inay arkeen ayadana waa lagu afurayaa aragtidoodana waxba lagu qaybsanayaa waxa la mid ah iyadana sidoo kale bisha shawaal markay bisha waxaan shacbaan dhamaadkeeda ramadaanna dhalanayo hal ruux oo muslim ah haduu sheego ayadana cala saxiix xadiiska nabiga sidoo ku sugan culimo badanna ay qabaan ramadaan waa lagu soomayaa waa marka bisha la soomayo laakiin marka laga afurayo waxay u badan yihiin laba ruux iyo ka badan inay soo sheegaan المهم soo sheegida bisha hadii la soo sheego laba ruux iyo ka badan ay soo sheegaan ayadana waxa waa dariiqa saddexaad oo bishii waa lagu soobi waana lagu afuraya maxaa ku tusaya axaadiista nabiga ku cadahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa kamid ah xadiidkaas Abu Malik al-Ashja'i xadiid uu warinayo wuxuu leeyahay Husayn ibn Hathir al-Ajadali ayaa ii waramay buu leeyahay amiirka Makka ayaa khudbeeyay markaas wuxuu yiri ahida ilayna rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam an nansuka lirru'ya nabigu wuxuuna amro nugula ballamay inaanu ku cibaadaysano ku ciidno aragtida fa in lam narahu hadanan arkin oon arki weyna bishi wa shahida shahida adlin laba ruux oo muslimiin oo caadilana cadaalad ku sifaysan oo aan lagu ogeyn wax xumaan ah laba ruux oo muslimiin oo caadiliinana ay sheegaan inay arkeen nasakna bi shahadatihima qiraalka iyagu qireen inay arkeen ayaanu markaa ku cibaadaysanayna oo ku afurayna oo bisha ku soomayna oo ku ciidayna waa laba ruux nabiga sidana amray buu sallallahu alayhi wasallam oo nasiyay dardaarankan nasi sidoo kale waxa jira xadiidka Abdullah ibn Umar oo حديث أبو داود غير كبا وري وانا حديث صحيح كهوري حديث عبد الله بن عمر وحوليه هي ترى الناس الهلال ددك بشير الراديه اني اركان باي اسكو ديان فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصامه markaas nabiga waxaan u sheegay in aan ugu arkay hadana Abdullah ibn Umar markaas uu nabigu ku soomay aragtidaan u sheegay wa amara an-nas bi siyamihi dadkana wuxuu amray inay soomaan iyadana Abu Daawud qeyrkii baa wariyay xadiis sahih marka bisha dhalashadeeda markay Ramadaan dhalanaysa hal ruux aragtidii buu nabigu sallallahu alayhi wasallam kuna soomay ummadana uu ku soomiyay sallallahu alayhi wasallam bisha Ramadaan markay dhamaanaysayna nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu dadka ku afura laba ruux oo caadiliin oo muslimiin haday soo sheegaan ku afura buu nabigu sallallahu alayhi wasallam amarkaas ummadda siiyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi mas'aladaas horta waa mas'alo oo
saddexdaa mid ka mid ah hadday sugnaato sharcan masaladu waa cadda bishii baad aragtay soddon baad dhammaystirtay intaad arki weyday dad baa soo sheegay laba ruux u yar yihiin ramadaan inuu dhammaaday oo arkeen bishii shawaal intaba nusuus cadcad baa ku sugan in lagu afurayo nebigu sheegay sallallahu alayhi wa alihi wasallam ma aha sheekh hebel baa yidhi iyo wadaad hebel baa yidhi iyo ma aha waa nusuus nebiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam inta mid ka mid ah haddii lagu afuro marka haddii maalan 29 inta la soomo bishii la arko oo dad soo sheegaan kadibna lagu afuro kadibna habeenkii 30 ay ahayd bishii la arki waayo afurkii la afuray ciidii la ciiday khalad miyaa 30 baa maalan la dhammaystay 30kii markii lagu afuray habeenkii ka dambeeyay ee la filahay bisha in la arkaaba la arki waayay waxaan leenahay soonkeena bilowgiisii baa khaldanaa waa masaa'il aynu ka hadli doono oo aan soo wadno waay طيب masalada xigta waxay tahay haddii ay soo aroortay macluumaad ah bishii lama arkin bishii baa la waayay meeshii la filayay ramadaan baa la filayay inay dhalato waa la raadiyay waa la waayay ramadaan habeen maalintii 29 ka 30 ku soo galeysay ayaa la raadiyay waa la waayay sidii baa lagu go'aansaday lagu ilaamiyay waa lagu soomay gadaal baa waxa ka timid macluumaad sax ah oo sheegaya bishii inay dad arkeen ama maalinimadii dambe iyadoo la sooman yahay baa warku yimid ama isla habeennimadii baa warku soo kordhay warkaasi ma la qabsanayaa mise waxaan leenahay maadaama annaga aanu xalay go'aansanay inaan soonno warkan dambe dib ka yimid muxuu yahay wax jira ma aha mise warka waa la qaadan xat habeennimaha noqoto maalinimo iyadoo la soomay xataa haddii uu warku yimaado in bishii dad arkeen waa lagu afuri arintu say tahay mas'aladaasina waa mas'alo la doonayo iyadan inaan cadeyno wareer iyo walaahu ka taagan yahay xaqiiqaduna waxa weeye nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisii bay ka sugan tahay ayagoo go'aansaday inay soomaan oo sooman in bishii loo soo sheegay in shalay la arkay kadibna uu yiri maanta soonka aad soomantihiin jabiya maadaama bishii shalay la soo sheegay xilligu nabigu ka noqonayo waa goorma waa maalinimo dadkuna waa sooman yihiin xalaynimo bishii la arkayo macluumadoodu kadib dhacday inay soo gaadho ayaa dib ka soo gaadhay markaasuu nabigu amray sallallahu alayhi wasallam in la afuro xadiidkaasi waa xadiidka Rabi'i ibn Hirash wuxuu ka warinayaa rag adeeradii oo saxaabadii nabiga kamid ah sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ikhtalafa an-naasu fi aakhir yawm min ramadaan dadkii waxay isku khilaafeen maalinkii ugu dambeeyay bisha ramadaan bay isku khilaafeen faqadima a'rabiyan labanino reebadiya aba yimid fashahida 'inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam markaasay nabiga agtiisa marxaati fureen shahida billahi la ahalla al-hilala amsi 'ashiyatan nabiga agtiisa marxaati fureen oo ku dhaarteen inay bishii shalay galabnimo iyagu arkeen shalay galabnimo goorma la jooga maalintii dambe la jooga waana la soomay fa amara rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam an-naasa an yuftiru markaasuu nabigu dadka amray inay afuraan afura rasuulku sallallahu alayhi wasallam labadan inay warka soo sheegay labadan reebadiye ah tabcan socota meel bay ka yimaadeen yaani waxa weey sidaasuu nabigu dadku afuriyay sallallahu alayhi wasallam riwaayad kale waxay leedahay dad safara nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam oo yiri annaga shalay bishii aragnay kadibna nabiga dadku wuxuu amray inay afuraan riwaayad kale waxay ku daraysaa in ay berri subax ay u soo kalahaan salaada ciida berri inay u soo kalahaan maantana afuraan laana maanta ay sooman yihiin maadaama ay dib ka soo aroortay macluumaad la helay in bishii xalay la arkay maanta ay sooman yihiin nabigu wuxuu ka soo qaaday inay ciid tahay ciidna in la soomo waa xaraam bil ijmaac saas daraadeed buu nabigu maalinimadii afuriyay soonkii xalay la qaatay go'aankiisina nabigu waa ka noqday sallallahu alayhi wasallam laana macluumadii hore wax ku dhisay macluumadaas maqnayd macluumadii markii soo gaadhayna nabigu sallallahu alayhi wasallam waa qaatay dadkana wuxuu amray inay afuraan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi isla sidaas oo kale waxay ka sugan tahay khulafadii nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam muxuu ahaayay
iyadana Abu Daawud iyo qeyrkii xadiidka wariyay sidoo kale waxa sugan sida Abu Wa'il Shaqiiq ibn Salama uu warinayo wuxuu leeyahay meel la yiraahdo Khaniqiin baan joognay fa ahlalna hilal shawwal yani naharan bishi shawwal baan aragnay buu maalinimo iyagoo maalinimo la joogay bishii arkeen fa minna man saama wa minna man aftar maadaama maalinimo bishii aan aragnay qaarna way iska soomaneen soonkoodii iska wateen qaarna way afureen waxay yidhahdeen war bishii waatane maalinba ha ahaatee bishii waatane in afuriya way afureen fa ataana kitaab Umar marka yani qoraal iyo waraaq ka socoto Umar ibn Khattab oo khaliifkii muslimiinta abaa noo yimid buu oo dhahaya in al-ahillata ba'daha akbaru min ba'din biluhu way kala weyn biluhu marka bishu markay dhalanayso way kala weyn xajmigoodu fa idha ra'aytum al-hilala naharan bishi hadad maalinimo aragtaan qorraxdii oo dhicinba bishi aad aragtaan oo maalin ay tahay fala tuftiru ha afurina soonka ha jabinina illa an yashhada rajulani annahuma ahallahu amsi illa inay labanin ka markhaati furaan inay shalay markay qorraxdu dhacaysay arkeen mooyee oo marka haday dad yimaadaan dhahaya shalay markay qorraxdu dhacaysay annaga aragnay bisha iyaguna marka maalinta ay sooman yihiin Umar wuxuu leeyahay maalinkaas marka soonka jabiya oo labada ruux ay yimid bisha sheegay inay shalay arkeen soonkiina maanta aad soomantiin u jabiya hadiiskaasina iyo atharkaasina waa athar isaguna saxiixa عبد الرزاق في المصنف ابن أبي شيبة سيدوك المصنف محو أهي الدرقطني بيهقي أي مفر بدن باورينيا وانا حديث صحيح بيهقي سيدوك محو أهي حافظ بن حجر إمام النووي وحيليه هو سونه أثر صحيح. طيب سؤال شو وحي تهي مركب ماشا وحي نفهني وركن دحيا أمدي صوم بيكو ترقش وصوم بيكو أنصت oo soon baa loo ilaamiyay kadib warkan dib ka yimid maxaad umada ugu lugoynaysaan warkaasi wuxuu khilaafsan yahay hadiyigi nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam iyo hadiyigi saxaabadiisa iyo dhaqankii salafku khilaafsan yahay maxaa yeelay bishu macluumadeedu way soo daahi kartaa dad meel ka yimid baa maalinka dambe iyadoo la sooman yahay sheegi kara habeenkii xilli dambe soo dhici kartaa waqti hore la ogaan karaa وفيرسد وقت النبي صلى الله عليه وسلم معلومات وحي إيمانيسا إن بيشي حلال أركي ماني جدا ما يجوا صوما بيو إيمانيسا ويقاضنا يا نبي الصحابي صلى الله عليه وسلم سيداس درادد ما ردتكو إني هو الرع نقضانو سيداني مدع كرتي سيدان ويدع كرتاي ما هي وحني وحياله هري ودعوي شرعدنا أي داويسي أو ميل صارتي وا قضب كاسنا ومسألة حكتي الصدحات أو معناه هذا يهي حلي والبا حتى آثار تقاركود وحكوسو أروري qorraxdu xataa sii dhici karto galabnimadii la joogo haday dad yimaadaan inay shalay bishii arkeen sheegaya oo lagu kalsoonaado casarka kadib soonka waa la jabinaya sababtu waxa weey maalinka la soomaya waa ciid macnaha ciidna lama soomi karayo sidaas weey macnaha mas'alada afraadi waxa weeye oo aan doonayo inaan taabto kaba soo qaad 30 bari baynu dhamaynay رمضان صدّن بينو دمينه وأفرّي أما ضد بعديه إني أركان أو أنكو أفرّي كدب هبين كي حجيبان بيشي بأركويني محن صميننا ما وحن لنا هاي صون كأني هرا خلدنا ماشي باللو كأني هرا خلدنا ما وحن لنا هاي ضد كي أركتي ذا صوش شيء باسموتسي أما بين شيء مسه habeenka dambe ee bisha la arki waayay la danayn maayo maadaama soddon la soomay ama ma ahee dad lagu kalsoon yahay soo sheegeen oo sheegidoodii lagu afuray habeenkii dambe bishii la arki waayay wax ka soo qaad ma yeelanaysa miyaa mise waxba laga soo qaadayaa waa mas'alada xigta waay mas'aladaas culimadeenu waa ka hadleen gaar ahaan waxa ka hadlay al-Imam Shaafi'i alayhi rahmatullah wuxuu kaga hadlay kitaabkiisa umka ah asxaabtiisuna sidaas ay ku qaateen oo mas'alada kutubtooda kaga wada hadleen oo ku bisleeyeen rahimahumullahu jamii'an mas'aladu kutubta fiqiga shaafiiciga oo dhan baad ka heli kartaan waxay leeyihiin
وإمام الشافعي وليبا أمك كعدينيا هدي بشي رمضان إذا قبلنا في هلال رمضان عدلا وصمنا على قوله 30 يوما فلم نرى الهلال بعد 30 فهل نفطر فيه هدي رمضان كمركو باللابني هل روحو صور شيغي وركيس أين كسوني warkiisii inagoo ku soconana soddonkii bisha ramadaan aynu dhammayno soddonkii markaan dhammaynayna habeenkii ka dambeeyay bishiiba arki weyno miyaynu afuraynaa mise afuri mayno soddon markaan dhammaynay habeenkii soddonaad ayaan bishii arki weynay dheh habeenkii soddonaad ayaan bishii arki weynay ma afuraynaayo ma ciidaynaa mise ma ciidayno al-Imam Shaafi'i alayhi rahmatullah نص أمكيس وحو ليه والله أفوري وحن كلا قال لهين هبين كا معونه وحوي صدن كأين نصاني أو صدن كإنتين ضميني بشي أي دمات هاي بشي إن الأركان اللي سجي لأركي واي صدن الله صامي كلا قاد ملها أما الصمد يهودو هفرناتو أو ضرور يبور يوسن كوجد بنانين أما هكوجد بنان هذا كلا قاد مله إمام الشافعي أصحابتي سمرك وحيليه ومد أوليه إمام نووي أصحها عند المصنف وجماهير الأصحاب وهو نصه في الأمواه يعني وحوي أصحاب المذهب انتو ضبطا إيو جمهور الأصحاب كانوا لي بإمامك وكعدي وحوليه هي والغو أفوري حلغو أفوريا وحلغو أفوريا أركتدي هلك الروح وشيغي بيش اللغو صومي رمضان صدنا اللغو بوحيي habeenkii soddonku buuxsameeyna la arki waayo bishii ma waxaan leenahay been buu noo sheegay soddon haday buuxsantay bisha waa la arki lahaa wuu khaldamay mise waxaan leenahay ma ahee aragti ruux muslim ah oo la qaad shariicadu ina amartay baynu wax ku salaynay soddonna waynu ku buuxinay bishii hadaynu arki weyno yeelkadeeda waynu ku afuraynaa waynu ku ciidaynaa imaam Shaafici sidaas uu leeyahay madhabkiisana sidaas raajix ah أصحابتي سنة سيداسي أبديهن وأنا ميتك أوليه الإمام النووي عليه رحمة الله مذهب كشافعي وهذا هو المذهب سيدا مذهب كسيداسوي مركا مسألة دي علماء دي بهوري وجهدش هدي مركا بالله عليكم هل روحه مسلم أو لغو صومي أو كدي من الصدن مركا بحسن بيش لا أركي واي هدي للتهمي واي أو لديه واي بين بوشاكي أما لديه واي وو خلطمي أما la dhihi waa una lugooyay ka waran haday dad badan oo muslimiina arkeen ka waran haday intaasoo dal oo muslimiina arkeen ka waran haday intaasoo khalaa'iq ay soo sheegeen see loo dhihi karayaa way ismoodiyeen been bay sheegeen dadka waa lugooyeen say ku iimaan kartaa hal ruuxna culimadu waxay leeyihiin oo bisha رمضان باللوجة اللجو صومي صدنا اللجو بوحيي صدنا كاللجو بوحيي أركتيدي سي مرقاتي فركيسة واللجو عيديا حتى بشيء يلا أركن سيدا مركل اللي هذا معناه هذا وحوي سيدا مركل الله أفره أما أركتي الله صوش شيء هاللجو أفره أما صدنا بوحو صدنا كل بوحيي هاللجو أفره هذا يدعده مركل كدي بشيء هبين كي دنبئ إن لأركي واي maxaa la sameeynaya waxaan rabaa inaan idhaahdo shariicadu inooma dirin marba hadii qaabkii ku afura aynu nidhi ay ku aan ku afuray qaabkay ina tiri ku afura hadaan ku afuray waynu aragnay soddonkan dhamaynay dad lagu kalsoon yahay oo tira aba soo sheegaynu ku afurnay inta wixii ka dambeeya ma bil weyn baa la arki doonaa habeenka dambe ma meelaha laga arki doonaa ما لا أركي مايو لا ينوم الدرين نينكي علمي كذا هاي أنا هكيانو نلوم الدرين أنا جوحوي ظاهر كشريعتنا أمرتي حديث النبي كقصة جنتاي يداوي أركتي ده إنه كو أفرني ما كو كلصنا ها طيب صدق كي مبو حني وصفي عنه اللي هو أنا ما كو صاب اللوني أما أركتي الصحة أما مرخاتي الصحة أما صدق وشعبان ورميني ما كو صاب اللوني صدق كينا مرة ما ينها wixii ka dambeeya hatta bisha in la raadiyo xul loogama baahna inaad buur fooshay in raadisay meeleblo waa laga arki waayo dalka intiis badnaa lagama arkinayo waxa si ay idin dirsaday ii sheega yaa diray xagee ku taala
yaa yidhi raadiya habeenadaas dambe bishii haddayba muxuu ahay dadka ummaddii ciiday oo qaab sharciya oo shareecadu inoo dirtay lagu ciido lagu afuray yaa yidhi gadaal ka raadiyo haddaad arki weydaan soonkiinni waxba kama jiraan ciidiinni afurkiinni waxba kama jiraan ka soo qaada yaa yidhi xagee ku taallaa nabiga may ka sugan tahay saxaabadiisi may ka sugan tahay xagee ku taallaa arrin runtii yani ummadda in lagu wareeriyo sax ma aha wax aan la hubin waxaan salaysnayn oon cilmiyeysnaynna ummadda in lagu wareeriyo ma aha culimada nusuustoodii wataa nabigana sal alla alay slam axaadiistiisii wataa marka hore in layska hubiyo weeye dadka soo sheegaya ma lagu kalsoon yahay in la xaqiijiyo haddii la xaqiijiyo oo sidaa lagu soomo lagu afuro markaa kadib bishii la arki waa iyo way yar tahay iyo weyn tahay iyo laba habeen bay u dhigantaa iyo hal habeen bay u dhigantaa adeerayaalow khayr allah idin siiyo waxaasi laysuma dirin ninkii leh waa laysu dirayoo waa laga maarmaana hadda caddaynteeda ha keeno khayr allah idin siiyo waxa laga hadlayo waa masaa'il diiniya oo ta'siil iyo sharci iyo u baahan fiqhigi iyo aqwaashii ahlulcilmiga u baahan bal culimada muslimiinta qaar ka mid ah sida alimaam albayuumi oo shaaficiyada culimadooda ka mid ahaa wuxuu sheegayaa dad lagu kalsooyo muslimiinta ayaa sanadihii yani waqtiyadii tegey qaar ka mid ah waxay markhaati fureen inay bishii arkeen iyadoo oo xisaabta falakigii ay leedahay lama arki karo ayay sheegeen inay iyagu arkeen waxbaa lagu qaybsaday waa lagu afuray waxbaa yani waxa way dadkii waa qaateen habeenkii ka dambeeyey ayaa haddana bishii la arki waayey iyadoo hawadu furan tahay oo wax daruurana ayna jirin wax muxuu ahay bus iyo boodhna ayna jirin oo hawadu furan tahay baa habeenkii dambe la arki waayey ayaguna habeenkii hore markhaati fureen inay arkeen wuxuu leeyahay habeenkii dambe haddii la arki waayey waxba lagama soo qaadin oo looma aaba yeelin labadii ruuxe muslimiinta markhaati furkoodii lagu soomay lagu afuray unbaa lagu socday iyadii baa lagu ciiday iyagii baa wax lagu qaybsaday marka wax waa tan hadda taagan oo kaleeto dadku ay isku wareerinayaan oo kale way wuxuu ka hadlayo mas'aladaasi ayaduna mas'ale kale waay mas'alada shanaad aan doonayo inaan baraarujiyo waxay tahay haddii dadku waxyaalaha caadaysteen iyo meelaha shareecadu wax ku xidhay iskhilaafaan kee la qaadanaya maalan caadada waxaa ka mid a sida caadiga ah curfiga ah mujarabka ah haddii bishu ay 30 ku dhammaato habeenka ka dambeeya in bishii la arko bay caadaysteen oo waliba ay weynto korayso way arki waayeen caadadii aqoon jireen baa suuroobi weyday waa qodob dhanka kale 30 baa dhammaatay oo shareecadu tiri ku afura dad muslimiina markhaati furay oo shareecadu tiri ku afura wixii dadku aqoon jireen arki jireen caadadooda ahaa iyo 30 buuxadii oo lagu afuray ama dadkii muslimiinta markhaati furkoodii lagu afuray baa isku dhacay keen qaadanaynaa waay markaas oo kale la shaka waxa la qaadanayaa shareecadu meesha wax ku xidhay manaadka shareecadu wax ku xidhay waxa weeyaan aragti ku afura markhaati cad oo ku kalsoontihiin ku afura bisha 30keeda ku afura halkaas ay shareecadu wax ku xidhay inta wixii ka dambeeya nalooma dirin in la yiraahdo kadibna habeenka dambe fiiriyo oo bisha qiyaas oo haday markaa noqon weydo sidii aad ku afurteen ka noqda shareecadu ma dhihin shareecadu waxay noo dirtay saddexdaa qodob ku afura ku sooma inta wixii ka soo haray waa caadaad dadku ay caadaysteen sidan aan aqoon jirnay sidan aan arki jirnay bil 30 in inta la egto la wada arko bil muxuu ahay 30 haday dhaafto iska badaa in caalamka laga wada arko waxaasan arki jirnay waxaad arki jirtay iyo nusuustu meesha wax dhigtay way kala duwan tahay aragaaga iyo waxaan u soo joogi jiray iyo waxaan maqli jirnay meel dhigo maxaa la yiri culimadu tiri maxay shareecadu tiri maxay nusuustu tiri waxaynu ka hadlayna diin waaye caada ma aha dhaqan ma aha hidam ma aha waan soo arki jiray ma aha waxaan ka hadlayna waxa weeye waa mas'ala diiniya waa mas'alada diiniga markaan ka hadlayno walaalayaal khayr Allah idin siiyo saan ku hormariyayba waa in loo noqdo maxay shareecadu tiri marka in la shaki geliyo muslimiin aragti
ku afuray ama markhaati ku afuray ama soddon buuxiyey in la shaki geliyo laga shaki geliyo afurkoodii iyo ciidoodii calashaani habeenkii dambe bishii maanaan arkin ama habeenkii dambe way yarayd ama laba uma muuqanin warkaasi war saxsan maaha warkaasi war saxsan maaha wax war shariicada waafaqsanna maaha ninkii haya oo wax sharciga u hayowna qaab cilmi ah oo naqli ah oo nusuus leh oo aqwaasha ahli cilmiga leh intaad uga hadasho cilmiye mas'alada haddii kaleeto waxaan leeyahay walaalayaal dadka caamada muslimiintoona ha wareerina wadaadada aan mas'aladu u bislaanowna khayr allah idin siiyo dadka ha wareerinina oo mas'aladan talaata oo mas'ala cad oo nusuus iyo aqwaashi ahli cilmiga leh oo ay fardiyeen oo ka hadleen saas haday dhacdo kulli ay faahfaahiyeen way meelaheedaad ugu tageysaan saas daraadeed caadaadka dadku ay caadaysteen iyo haday iskhilaafaan yani wax weeyaan wixii shariicadu ay wax ku xidhay kii shariicadu wax ku xidhay baa la qaadanayaa saas daraadeed ba muxuu ahay culimada shaafiiciyadu nin kamida Abu Bakr ibn Haddad la yiraahdo oo mas'aladaasi muxuu ahay madhabka ku khilaafay ayuu imaam al-Haramayn Ali rahmatullah ka hadlay markaas wuxuu yiri ra'yigiisa markuu ka hadlay wuxuu yiri hada muzayyaf ghayru ma'dud min al-madhhab waa wax jira ma aha buu ra'yiga isaga ra'yi muxuu ahay bishii in la arkay ahayd dil arki waayay aragtidii hore in lagu noqdo oo la shaki galiyo warkaasi war jira mulay imaam al-Haramayn saxna way madhabka Shaafiiciga sidaas waa sidaan horeyba imaamka uga soo naqlinay imaam Shaafici Ali rahmatullah mas'alada lixaad doonayo inaan ka hadlo waxay tahay sidaas markaan yani wax weey intaan ka bixin qodobkaasi waxa weeye dadkii sabtida afuray sabtidana ciiday maxay ku ciideen maxay ku afureen waxay ku afureen oo ay ku ciideen aragti mustafiid ah mutawaatir waxa la yiraahdaa tiro badan oo xad lahayn oo muslimiina soo sheegay inay arkeen meel ma wada joogaan been iskuma raaci karaan ismoodsiis iskuma raaci karaan suurtagalna ma mustaxiil waay ilaa galbeedka Afrika Mauritania iyo muxuu ahay Mali iyo muxuu ahay ilaa Niger ilaa muxuu ahay iyo bariga Afrika oo dawlado kala duwan ah ummad inta la eegoon is ogeyn in ay sheegaan oo yiraahdaan bishii habeenkii sabtida annaga aragnay ma beenaalayaal bay noqon karaan bal isweydii intaas been ma isku raaci karaan bal isweydiyo intaas ma isku raaci karaan ismoodsiis iyo xidig bay moodeen dayax iyo xidig bay bishii moodeen ma isku raaci karaan waa wax aqliga bini aadamka iyo curfiga midna aan suurtagal ahayn waa mustaxiilaadka shib mustaxiil way ama mustaxiil ba waa macquul ma shariicadu inta in ka yar bay wax ku qaybsataa wadamo dhan ilaa 8 wadan 7 wadan oo shucuubtoodii in badan soo sheegeen warkooda iska badaaya shariicadu san soo sheegnayba laba ruux oo muslima oo soo sheegay hatta meel wada jooga bay shariicadu tiri ku afuro kuna soom marka dadka in la wareeriyo walaalayaal sax ma aha in muxuu ahaayay masaa'il u baahan xaqiijin in la leedo fuulana runtii sax ma aha masalada lixaad doonayo inaan halka kaga hadlo waxay tahay waxa jira wax la yiraahdo xisaab falak nimankan xisaab falakiyiinta ah oo manaasisha qamarka iyo muxuu dayaxa iyo qoraxda iyo say isula socdaan iyo say u kala dambeeyaan iyo xisaabtan falakiga la yiraahdo oo hadda maraakiis fara badan laho yeelatay muxuu ahaay qalab teknolojiya fara badan yeelatay oo laakiin cilmi horeeyay ah hadii xisaabta falakiga ay tiraahdo lama arki karo oo ragii culimadii falagu iyo maraakiistii falagu ay yiraahdaan lama arki karo kadibna ay sugnaato la arkay dad muslimiina farqaati furaan inay arkeen ma xisaabta falagan qaadanayna mise aragtida muslimiintu sheegan baynu qaadanayna culimadeena sunnadu iyo fiqigu way ka hadleen mas'alada falaga iyo ictimaadkiisa waxay kaga hadlaan ninka isagu falag ahaan ugu qancay inay bishii dhalatay
asagu ma ku soomi karaa cidda uu u sheegay warkiisa ku qanacdayna ma ku soomi karaa ma bannaan tahay inuu ku soomo sharci caam oo ummadda lagu wada camimo oo lagu laazimiyo qaabka ugama hadlayaan isaga shakhsiyan ku qancay cilmigana garanaya ma ku soomi karaa mise kuma soomi karo dad uu u sheegay oo kula qancay ma ku soomi karaan ma bannaan tahay baa laga hadlayaa waajib bay ku tahay ma aha طيب laakiin taas ma bahaba in cilmiga falaga la kaalmaysto ba loo kaalmaysto bishii suurtagalba mar la arki maayo macluumaadkeeda loo kaalmaysto raadinta la raadinayo iyo fiirada la fiirinayo in loo kaalmaystana iyadana mushkilo male lagama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayaa aragti baa waxay ku sugnaatay qaab sharci ah dad muslimiina arkay way qireen wadaadadii falaguna waxay yiraahdeen suurtagal ma aha ma falagan hormarinaynaa mise aragtida nabigu qaata inuu yiri bayna hormarinaynaa waxay leeyihiin culimada Imam Nawawi Sheikh Islam Ibn Taymiyyah aymadu waxay leeyihiin nusuusta sariixa iyo ittifaaqa saxaabadu waxay tilmaamayaan in aan xisaabta falakiga loo khilaafi karin wixii nusuustu sheegtay oo ah aragti ku sooma aragti ku afura markhaatiga iyo cadaynta soo aroortay ee dadku qirayaan qaata taasa la qaadanaya culumta falagana looma khilaafi karo arintaasina runtii waa saabiqa khatar awaay manaataadkii shariicadu wax ku xidhay oo arka oo fiiriya oo markhaati raadiya ahayd haddii inta laga guuro la yiraahdo ma falag baa beeniyay culumtii falaga beenisay haday beenisayna aragtidani waxba kama jirto falaga muqaddasa wadaadada falaga warkooda saxa tan tadaata ummadan dhan aragtayna waxba kama jiro waa mukhalafa sariixa waay waa si cad oo loo khilaafay nusuustii loo khilaafay waay maxaa yeelay manaadka shariicadu wax ku xidhay manaad aan ahayn adiga hadad wax ku xidho waa tagyiir waa qaanuun badal waay shariicadu waxay wax ku xidhay arag ku soon sodon dhamee ku soon dad lagu kalsoon yahay aragtidooda ku soon shariicadu halkaas wax ku xidhay adiguna waxa tiri taas waxba kama jiree falaga iyo wadaadadani waxay sheegaan baan ka hormarinaynaa miyaysan ahayn marka meeshii shariicadu wax dhigtay intaad beenisood ka guurtay in aad mid kale ku bedelatay miyaysan ahayn qaababka sidoodaba tagyiirka ku dhaca iyo tabdiilka sharaa'icda ku dhaca soo qaabkaas oo kuma yimaadaan waa mas'ala halis waay mas'alada falaga ma la kaalmaysan karaa hadii bishii la waayo mas'ala kala waaye ma la cuskan karaa lama cuskan karayo laakiin bishii la arkay intaasoo jamaahiiro muslimiinta ay arkeen intaasoo dawladooda ay arkeen يعني suurtagal ay ahayn inay khalad isku raacaan ama been isku raacaan oo istifaada iyo tawaatur ah oo xaaladda ay isku waafaqsan culimadu isku waafaqsan yihiin in la ictibaarinayo inaad intaad beenisa tiraado ma falaga diiday warkaasi waa saabiqa khatiir ah aad bay halis u tahay sidaas daraadeed waxaan leeyahay masaa'ishaasi waxay u baahan tahay in aad looga fiirsado waxaana masalada ku ibtilaysan in la taqdiisiyo falaga iyo xisaabtiisa wadaada mucaasiriina ku ibtilaysan qolo falaasifa baa ku ibtilaysan qolo aqlaaniyiin ah oo aan nusuustanba waxba u ogeyn iyo meeshii shariicadu wax dhigtay baa ku ibtilaysan wayna jiri jireen aqlaaniyiin diinta aqligoodii waxay ila tahay iyo falsafada ka hormareeyay hadda meehe way horeysay ani kama dooday masaladan ka hadlayaan loo fahmin falaga sidiisaba ma loo ictimaadi karaa bisha hadii la waayo waa mas'ala kale way khilaafkeeda leedahay bisha hadii la waayo falaga xisaabaadkiisa ma lagu qaybsan karaa mas'ala kale way ma la kaalmaysan karaa bishii sidii loo heli lahaa mas'ala kale way laakiin waxaan ka hadlay wax weey aragti sharci oo sugnaatay in looga tago calashaan xisaabta falaga mas'alada way mas'aladan ka hadlay mas'aladaas mas'ala khatiira waa aad in looga digtoonaado way liskana jiro يعني waxa iyada wixii ku ibtilaysanba waa mukhalafo sariixa oo muxuu ahaay khilaafsan nusuustii shariicada khilaafsan waa iyo waliba ijmaaci saxaabada ridwaanullaahi calayhim qodobka kale wax weey oo islaamiyashaasa falakiyiinta laftooda waana mas'ala muhiim falakiyiinta iskuma raacaan inta badan xisaabta falakiga iyo muctayaadka falaga iyo waxyaalaha soo saarayaan iskuma raacaan mid baa wax sheega markas kaliya center kala beeniya mid caalim falakiya war sheega ku kala yiraahdo waxba kama jiro waa
mid labaad waxaan u soo joognay marar fara badan intay yidhaahdaan falakiyiintu isku raacaan meel hebla bisha lagama arki karayo intaasoo khalaa'iqul muslimiina inay sugaan oo arkaan dawladuhuna qaataan oo ku soomaan iyadoo falakiyiintii leeyihiin lama arki karayo marka falagan la taqdiisinayo leeyahay xisaabtiisu waa muqaddas ma khaldanto waa ijtihaad bashariya way khaldamayaan waa ismoodsiinayaan waa ijtihaadayaan daqiiq kasto yihiin si kastay u dadaalaan marar badan waxa cadaanaysa xisaabaadkoodu inay khaldan yihiin waxa sidaas oo kale marka in marka nusuusta iyo manaataadkeeda iyo meesha wax ku xidhay looga tago arintaasi waa arin aad iyo aad iyadana saabiqa khatarteeda la waay mas'aladaas todobaadan doonay inaan ka hadlo wax weeye mas'alada ku saabsan iskhilaafka muslimiinta inay ciida iyo afurka iyo soonka iyo isku khilaafaan waa mas'alo xajmigeedii qadarkii qiyaasta ilahay laga badbadinayo waa la bumbuuninaya asalku waxa weeye muslimiintu inay isla soomaan isla afuraan isla ciidaan la midoobo mid la ahaado asal saasa fiicnay laakiin haday suroobi weydo mas'alada in dabeecadeeda la siiyo xajmigeeda aan laga badbadinin la bumbuuninin waa lagu kala aragti duwanaan karaa waa la isku khilaafi karaa soonka bilowgiisa lagu kala duwanaan karaa ciida lagu kala duwanaan karaa maalin iyo laba bari baa la kala dambeyn karaa ijtihaadaad waay sidaasayna u jirtay waqtigii saxaabada ridwaanullaahi calayhim sidaasayna ku wada socdeen xadiidkii fi saxiix muslim reer shaam iyo reer madiina kala soomay xilligii saxaabada cabdullaahi ibn cabbaas muxuu ahay xadiiskiisa uu ka hadlayo abu kurayb xadiiskiisii طيب waxaa kaloo sugan sidoo kale atarkii hadda aan soo sheegayna saxiixa ee Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wuxuu leeyahay Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama ninka taabici weey wuxuu leeyahay waxa noo yimid qoraal uu soo qoray Umar ibn Khattab radiyallahu anhu anagoo joogna meesha la khaniqiin bishii Ramadaan ayaa markaasi dhamaada marka qaar anaga naga midana way sooman yihiin qaarna waan furan yihiin buu فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم dadka wada joogay muslimiinta ah ee saxaabadu u badan yihiin ee qaarna afuran yihiin qaarna sooman yihiin ijtihaadkoodu iskhilaafsan yahay wuxuu leeyahay qolada kale ma ceebaynin qolada kale ma eedaynin qolada kale wax kama sheegin qolada kale muxuu ahaayay ma xukumin Soomaaliyeed qolada yaani afurana ijtihaad bay ku afureen qolada soomana ijtihaadkooda ku afureen oo sidana la xoog badnaatay markaas kitaabkii Umar noo yimid qoraalkii iyo waraaqdii Umar soo diray baa noo timid oo dhahaysa biluhu way kala weeyeen ee bisha hadaad maalinimo aragtaan ha afurina ilaa ay laba ruux soo sheegaan inay shalay arkeen oo ay shalay bishii dhalatay ilaa ay aragtaan soomanaada buur marka saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo salafkii ay hal meel wada jooga ayaa aragtidoodu ku kala duwanaatay qaarna afureen qaarna soomayeen طيب maadaama sidaas oo kale ay tahay mas'alo noocaas dabiiciyan ay tahay mas'alada xajmigeeda loo daayo muslimiinta cidii isla jaan qaadi karta oo isla afuri karto isla soomi kartana khayr iyo baraka way hadii ijtihaadaadku iskhilaafaan oo lagu kala aragti duwanaadana kala duwanaantaasi way soo jiri jirtay iyadana sideeda muslimiinta loo nabadgeliyo la isnabadgeliyo yaan la isku xad gudbin yaan muxuu ahay la isbaadiyeenin yani waxa ijtihaadaad soo jirjay illa xilligii saxaabada soo jireen oo sida arintu ahay maanta oo kale midna dad fiirisan oo macnaha wax way sanadkan hadda aan ka hadlayo 2020 marka la fiiriyo saddex bari baa la kala soomaya maalinkii sabtida ahayd wax oo bisho ay ahayd May ay 29 ka ahayd waxa soomay 7 dawladood oo Afrikaan ah dawlado marka la yiraahdo Soomaaliya ka mid tahay Ethiopia ka mid tahay Mali ka mid tahay Senegal ka mid tahay Mauritania ka mid tahay Ivory Coast ka mid tahay Niger ka mid tahay ila 7 dawladood oo Afrika ah soomay yaa wax dhila ayaa afuray oo ciiday sabtidii aragtiyadooda kala gedisan bay ku ciideen طيب qolada labaadi waxa weeye waxa qolada raacsan yani dad muslimiina oo laga tira badan yahay oo wadamadaas gaalada ku nool qaar kamid ah raacay oo iyagana la ciiday oo anaga kamidnahay qolada labaad waxa weeye waa dadka maanta ciidaya oo ahad ah
oo caalamul islaami sidoo u badan yahay maanto axaday ciidayaan sodonkiiba shalay dhameystireen maanto axadana way ciidayaan qolada saddexaad waaba muslimiintu meeshay ugu badan yihiinoo muslimiinta Hindiya iyo Bangladesh waxay ciidayaan isniinta maanto axada waa soomayeen طيب kii maanta axada soomay hadduu yiraahdo qolada isniinta yani ciidaysaay kii axada ciiday hadduu yiraahdo qolada isniinta ciidaysaay waa qaldan waa khariban kii sabtida ciiday hadduu yiraahdo qolada maanta axada ciidaysaay waa khariban ka maanta axada ciiday hadduu yiraahdo qoladii sabtida waa khariban ha qaleeyeen war sida waxuma yeelaan masaladuna dabeecadeedu sida ma aha masaladu soo jiri jirtay muslimiintana qolo walba ijtihaadkooda loo deyn jiray sidoodaasayna walaalo ku ahaayeen nabad lagu wada ahaa culimadoodu saaxiibo ku ahaayeen masaa'isha labadii isla niqaashayso oo iska dhaadhicinayso oo iska dhaadhicin jireen laakiin muslimiintuna culimadoodu ay saa ku kala raacsanaayeen aqaaliimta iyo dhulkay ku noolyihiin saa ku kala raacsanaayeen mushkilana ma abuurnayn marka mas'alada buunbuuninta ku jirta iyo ajendayaal kale iyo jahli iyo hawo la socota ayaa waxay abuuraysaa in runtii wax weeye muslimiinta wixii iskaba banaanay mushkilo waa aan mushkilo laga abuuro yani wax weeye masaa'il noocaas oo kale jirtay oo fuqahadeena iyo madaahibtii aad u isugu khilaafsanaayeen oo iyagu isku khilaafsan hadana walaalo ku ahaayeen sidaas oo kale la doonaya annagana inaan ula dhaqano wixii sidaas oo kale iyagu ay ahaayeen annaguna sidoodii baan ku soconaynaa ma khilaafayno mana khilaafi karnaba mas'alada xigta ee sideedaad ee ugu dambaysa kalimaadkan aan ugu talagalay ciidan muxuu ahaayay sanadkan iyo masaa'isha ka dhashay masalada kala doonaya waxay tahay inaan cadeeyo sida fiicani waxay u tahay dadka muslimiinta ee caalamka maanta ku nool saddex qaybood inaan kala qaadno qaybi waxa weeye waa qoliyaha ku hoos nool dawlado bisha raadinaya oo ku dadaalaya kadibna ilaaminaya oo ogeysiiskeeda bixinaya dadka dawladaha noocaas ku hoos nool waxa sax ah oo fiican dawladahooda ay ku hoos nool yihiin bisha raadinaya ilaaminaya inay raacaan iyaga la soomaan dawladaha islaamkooda ku ciidaan muslimiinta la raacaan aynan garab marin waxay mas'aladu haday khilaafiyad tahay muslimiinta dadka u taliyana ay khilaafkii mid kamid rajaxaan khilaafkaas meesha waa ka baxaya waa in markaas la raaco masaa'isha khilaafiga dabeecadooda sidaa way hadii culimadu ay masalada ku muransan yihiin laakiin sultada iyo awoodda dawladdu soo gasho oo khilaafkii mid kamida ay labadii ra'yi mid kamida qaadato ra'yigii kale nadari in la doodo oo culimadu ka wada hadaan mooyeen laakiin amaliyan meesha waa ka baxaya waxa la qaadanaya ra'yiga marka dawladdu ay rajaxday go'aankeeda marka la qaadanaya muslimiinta marka dawladaha ku hoos nool dawladaha waxa ku qaybsadeen ama soo hormareen ama hadib dhaxeen culimada qabta qaarna waxay qabaan culimada ikhtilaaf al-madaalic oo aragtida bisha iyo wala kala adduunku waa kala fog yahay oo qolo walba aragtidooda ay leeyihiin qolana waxay leeyihiin ma aha isku aragti caalamku ha noqdo xataa qolada dambe qabta hal aragti ha lagu wada soomo waxay leeyihiin wadciga maanta muslimiintu ay ku jiraan oo dawlad iyo duwaylaad iyo inay u qaybsameen qolo walba dawladay hoos joogan ha raaceen islaamkeeda muslimiintana bal hal ilaaliyo midnimada yarta tii weyneed hadii la waayay halkaas ay ka duulayaan culimada xataa qabta aragtida caamka ha lagu wada soomo ha lagu afuro taas waa qodob waay qolada labaad waxa weeye oo muslimiinta kamida waa muslimiin laga tira badan yahay waxay ku hoos nool yihiin wadamo gaala oo aan bisha danaynaynin raadinteeda iyo gelitaankeeda iyo bixitaankeedii aan shaqo ku lahayn waa wax waddan la yiraahdo dadka aqaliyaadka la yiraahdo waay maxay sameynayaan dadka noocaasi dadkaasina waxay sameynayaan haday leeyihiin hay'ado iyo maraakiis u xil saaran bisha raadinteeda iyo ka go'aan gaadhideeda ayaguna waxay raacayaan say culimadu leeyihiin hay'adkooda iyo muxuu ahaayay maraakistooda iyo culimadoodaasi la joogta ee meesha lagaga tira badan yahay dalka gaalada ku hoos nool yihiin ay raacsan yihiin diin ahaan ayagaas iyaguna ku xidhmayaan xilligii ay iclaamiyaan ama hadib dhaceen ama ha soo hormareen ama dawladaha kamid ah ku xidhmeen ama aragti madax banaan iyagu ha raadiyeen
ayaga iyaguna hay israacaan waxaa timid qolyahaasi ku hoos nool wadamada laga tira badan yahay muslimiinta bishana aan daneyneynin haddayna wada soconin oo kala socdaan oo kala soomaan maxaan sameeynaa marka waxaan leenahay muslimiinta dalalka ku nool hadiiba la israaci waayay oo sidii fiicneyd la waayay cid waliba cidii ay isleedahay culimadii ay isleedahay maraakiistii ay isleedahay hay'adihii ay isleedahay dadaalkooda iyo alla ka cabsigooda iyo cilmigooda ay ku kalsoon tahay ayay dadweynuhu raacayaan markaasi waxa weeye waa muqallidka muxuu ahaayay intii ku waajibaysay waay fas'al weydii marka cidii aad isleedahay kana dadaal roon diinahan ku kalsoon tahay aad isleedahay muxuu ahaayay waa kula saxsan kaas aad markaasi aad raacaysaa oo la soomaysaa oo aad la ciidaysaa waa hadii yani dadka aqaliyaadka ee wadamadaas ku nool israaci waayaan haday israacaanna yaan la jabinin oo la khilaafino yani waxa weeye hay'aadkaasi ay ku midaysan yihiin hal la wada raaco طيب taana waa qodob kale waay annaga markan ka hadlo Kenya ahaan waxaan aad u tamaninay muddo dheerna ka shaqeynay in la helo hay'ad maadaama muslimiinta Kenya laga tira badan yahay dal aan daneyneynin bisha aan raadineynin aan ku hoos noolay dawlad ahaan marka la yiraahdo hay'adka muslimiinta matala ayaa waxaan muddo ka shaqeynay 20 sano ka hor waxaan ka shaqeynay in la helo jiho muslimiintu sameeyaan oo u xil saaran bisha raadinteeda go'aankana iyadu ka gaadho muslimiinta kalena ay raacaan arrin ku saabsan waxaan xusuustaa dhowr 10 sano ka hor Mombasa aan u aadnay aniga Sheekh Maxamed Sheekh Cusmaan iyo culimada ku jirno Mombasa aan u aadnay muxuu ahaayay chief qaadiga oon kula kulanay oo aan isku daynay in muxuu ahaayay la sameeyo waa suroobi weyday hay'aadka marka muslimiinta madala ama masubka ma noqoto golaha sare muslimiinta ee Kenya ama qaadiga han noqdo muxuu ahaayay jiho rasmi oo hawshan qaadata oo meel walba muslimiintu meel la soo xiriiro bishii la sheego cidii aragta ku soo hagaajiso ma hayno dadaalkeeda wali lagama quusanin laakiin ilaa hadda ma jirto jihada ugu roon waa chief qaadiguna marar fara badan bishii oo laga arkay wadanka gudihiisa ayuusan danaynin waa mid keentay marka in la yiraahdo hal dadaalo hal isku tashado waa mid keentay annaga inaanu isxil qaadno oo bishii intaanu raadino wixii markaanu xaqiijino miisaankii shariicada saarno aan isnaahno waa lagu soomi karaa aan isnaahno waa lagu afuri karaa inaan marka muslimiinta u sheegno oo cilaamino mid keentay waa laakiin waxa aad nooga fiicnaan lahayd inaan helo hay'ad wadanku leeyahay oo hawshan qaadata oo aaliyaadkii iyo waxay u baahnay diyaarsata oo muslimiintii ay ku soo hagaajiyaan cidii aragtay oo xaqiijisa kadibna aan ka wada dambayno marka noo cilaamisa sida wadamada dawladaha muslimiintu ay ka jiraan oo kale sidaas oo kale booska noo istaagtaan jeclaan lahayn laakiin ilaa hadda kuma guuleysanin waana mid keenaysa inaanu anagu isxil qaadno intii mudaaba walina maana ka quusanay dadaalkeeda waa wadnaa ilaahay tabaaraka taala noogu kaalmeeyo warka murtidiisu waxaan leeyahay walaalayaal waxaan idin leeyahay tashwiishka faraha badan ummadda laga daayo qaska laga daayo wareerka laga daayo ajendayaashan cid aad iskhilaafsanaydeen maanta ku rog iyo dagaalkan hoose iyo yani waxa weeye laga daayo ummadan cidii wax u sheegaysay ha u sheegto wax sharci ah soonkeedii afurkeedii ciideedii aan shaki la gelinin kii sabti soomayna san soo sharaxnay aragti aan shaki ku jirin oo cad oo aan shaki la gelin karin ismoodsiisna aan la gelin kareynin been la isku raacayna aan la gelin kareynin bay sabtida dadku ku afureen annaguna aan ku afurnay laguna ciiday miisaanka shariicada marka la saarana wax shaki la gelin kara ma aha waa taxadda ninka shaki gelin karaya meeshuu ka gelin karaya u baahantay marka laga tago muxuu ahay ismoodsiiska iyo hadalka caamada marka laga tago qaab cilmi ah in shaki loo gelin karo ummadda inta leeg aragtideeda bay u baahantahay waxa qariib ah nimanka falakiyiinta inay yiraahdaan waxay arkeen bishii ma ahayne xidig bay meesha ka arkeen waa war qariib ah muslimiinta inta leeg 8 dawladood 7 dawladood oo is ogeyn
inay kala garan waayaan bil iyo kala garan waayaan xiddi kala garan waayaan wax qariib ah xataa qaar kamida inay waxay tilmaamayaan bishu dhanka ay u foorartay ma koonfur bay u foorartay mise waxay u foorartay waqooyi bay u foorartay xataa sharxayaan ma xidig baa foorarta oo caana shubata say Soomaalidu ina caana shubayta dhahaan sidaas daraadeed yani waxa khuraafaadka noocaas oo kala umada in lagu wareeriyo sax ma aha dadkaasina waxay ku soomeen aragti iyo marxaati fur istifaada iyo tawaatur oo khilaaf u soo gali kareenin dadka maanto axad ciidayana iyaguna ijtihaadkoodii iyo dadaalkoodii ku ciideen qolada sabt bari oo inaga dambayso isniina ciidayana iyaguna aragtidooda ijtihaadkoodii ku ciideen kullina ilaahay ciidoodii iyo soonkooda ha aqbalo tashwiishka marka iyo qaska in uun يعني وحوي أنا إلهذا لأنه وحبتي سؤالها وحبتي دتك وريرسن وحبتي دتك دجالمية وحبتي دتك محوها اسمه سيسكو كل عي دتك لما قلينا إنه يعني تشويش بدن بقى أمد الجلية وحلا مركا تشويش متشرو نقول بماشي ون اجتهاد كيسو كلا كفاي يماشي اجتهاد كيسو نقضي وكوس حين هاي طبعا عدم مسألة واسدة سيدا سين سواء هنشرتي أنا جنا وحبك ما بدلي كرنو wax ka fiican hadaan uga guuri karno waa ka guureynaa insha Allah ta'ala laakiin hadii wax ka fiican la waayo inteeda iyo sida ay tahay muslimiintu walaalaha ku ahaadeen nabadha lagu ahaado nin walba tiisi oo qaatay ilaahay tabaaraka wa ta'ala ha waafajiyo khayrka sidaana ha lagu wada socdo yani waxa weeyaan khilaafkan iyo doodan iyo qacacdan social media iyo dagaalkan shaarica iyo waxan socdana hal iska daayo wax nafci adduunyo mid aakhiro midna malaha mas'aladana ehelkeeda ha loo daayo إلهي تبارك وتعالى توفيق ده هنا وافجيو وحان انت ku dari lahaa oo ku gabagabeyn lahaa masalada ugu dambaysa soonka shawaal oo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam markii ramadaan soomay 6 bari oo shawaalana raaciyay sanadka soonkiisa oo sanad soomay bay u dhigan tahay laana sida nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam al-asharatu al-hasanatu bi 10 amthaliha ramadaan inaan soonnay waxay u dhigantaa 10 bilood ugu yaraan 10 bilood bay u dhigantaa sanadkii marka 2 bilood baa ka dhiman 6 bari oo shawaal markaad soonto oo iyadana 10 lagu dhufto waa 60 bari sidaas aad labadii bilood ee sanadka dhimadna ku soontay kaana ka siyaami dahri way sanadka oo dhammaad marka soontay ajirkeeda lagu siinaya marka 6 bari laazima horta bisha in lagu xijiyo soon ramadaan haduu dhamaado in lagu daba qabto laazima muhiimadu wax weeyaan bisha shawaal 6 bari oo kamid ah bisha aakhirkeeda ha noqoto ama dhexda ha noqoto ama bilowga ha noqoto maanta maadaama ay axad ahayd marka su'aalo badan baa igu iimaanayay dadkii sabtida afuray axadda ma bilaabi karaan shawaalka maadaama dad muslimiin ah waliba in badan muslimiinta kamida ay ciidayaan maanta axad ah waxa fiican soonka shawaal in dib loo dhigo oo isniinta laga bilaabo muxuu ahaayay ama hadiiba talaada laga sii bilaabana ka sii fiican maadaama isniinta bay muslimiinta qaar kamida ciidayaan marka misaladaas iyaduna sidaas weeye ilaahay tawfiiq dayna waafajiyo jazaakumullahu khayran saayishaasaan rabay xogaa inaan dul istaago cadeeyo walaahow far badan ka dhashay iyo buuq far badan labadan bari su'aalo badan ay ka yimaadeen ilaahay tabaaraka wa ta'ala amaashiina aqbalo ciideena ciid barakaysan Allah ka dhigo muslimiintana ilaahay tabaaraka wa ta'ala tawfiiqda Allah waafajiyo ilaahayna tabaaraka wa ta'ala wadcigan iyo xaaladan ay muslimiintu maanta ku sugan yihiin ku ka fiican oo midnimo iyo qarannimo iyo wada jir iyo awood ilaahay tabaaraka wa ta'ala ugu bedelo hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi